qodobadii ugu waaweynaa oo aan ku soo koobnay sanadkii 2025 ee soo maray Soomaaliya. 18kii bishii saddexaad ee 2025 ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka badbaaday qarax isku day dil la rabay in naftiisa lagu dhaafiyo. Madaxweynaha oo markaa ka soo baxaya madaxtooyada qaranka isagoo ku sii jeeda garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa weerar ismiidaamina ku soo qaaday Al-Shabaab. Kolonyadii uu la socday mid ka mid ah ayaa qaraxii lala beegsaday, balse nasiib wanaag madaxweynaha waa uu ka badbaaday. Madaxweynaha ayaa markaa ku sii wajahnaa gobolka Shabeellada Dhexe halkaas uu rabay inuu kaga qayb qaato ololaha lagu ciribtirayo Al-Shabaab, laakiin isagii ayayba gurigiisii kaga daba keeneen. Balse madaxweynaha uma uusan joojinin ee halkaas ayuu ka sii watay safarkiisii. Qodobka labaad oo ka mid ah wararka ugu waaweyn ee soo mara dalka Soomaaliya sanadkan 2025 ayaa waxa uu ahaa mar ay Al-Shabaab weeraro iyo olole weyn ku soo qaadeen guud ahaan dalka, gaar ahaanna shabeellooyinka ay goobo fara badan iyo tuulooyin iyo magaalooyin ku soo qabsadeen, kadibna ay sheegeen in Muqdisho ay qabsan doonaan goordhow. Wararkan oo qubarada amniga iyo warbaahintaba ay si aada u hadalhaysay oo xitaa la sheegay in Muqdisho ay noqon doonto sidii Afghanistan. Waxaa warbaahinta caalamka iyo midda gudaha iyo baraha bulshadaba la isla dulmarayay in Muqdisho ay ku sugan tahay xaalad adag. Xitaa dowladda Mareykanka ayaa digniin ka soo saartay amniga iyo khalkhalka ka jira magaalada Muqdisho. Balse dowladda Soomaaliya ayaa arrintaa ka biyo diiday oo kadibna xaqiijisay in magaalada Muqdisho ay gacantooda ku jirto ayna marnaba u soo dhowaan karin inay Al-Shabaab la wareegto. Waxay kaloo sheegeen in Muqdisho aysan ahayn Kaabul ama aan Soomaaliya lala barbardhigi karin Afghanistan. Taasina waa ay kaga dhabeeyeen markii dib loo eego caasimadda iyo amniga hadda ay ku sugan tahay. Wararkii isdaba joogga ahaa ee lagu sheegayay in Muqdisho ee lala wareegi rabana ay noqotay waxba kama jiraan. Qodobka saddexaad ee ka mid ah wararka ugu waaweyn ee soo maray dalka Soomaaliya sanadkan tagaya 2025 ayaa waxa uu ahaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo heshiis ka gaaray khilaafkii adkaa ee soo dhexgalay kadib markii ay dowladda Itoobiya heshiis dhanka badda ah la gashay Somaliland. Heshiiskaas oo sababay in Soomaaliya gabi ahaanba ay u jirto xiriirka diblomaasiyadeed ee la leedahay dowladda Itoobiya. Dowladda Soomaaliya oo ku xumeynaysa dowladda Itoobiya ayaa waxay xiriir hoose oo dhanka amniga ah la gashay dowladda Masar oo ay cadaawad soo jireen ah kala dhaxayso Itoobiya. Ciidamada Masar ayaa isla markiiba la keenay Soomaaliya iyadoo la sheegay inay dowladda Soomaaliya ka caawinayaan la dagaalanka argagixisada. Waxaana la sheegay in arrintaas ay saameyn ku lahayd inay Itoobiya ka dabacdo booskii ay joogtay ayna ka tanaasusho waxyaabo badan. Qodobka afraad oo ka mid ah wararka ugu waaweyn ee soo mara dalka Soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya 2025 ayaa waxaa ka mid ah dardargelinta iyo bixinta iyo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha kaasoo xiriir toosa la leh doorashada qof iyo cod ee dowladda Soomaaliya rabto inay hirgeliso sanadka 2026 ee nagu soo food leh. Barnaamijkan waxa uu abuuray xiisad gaar ah. Mucaaradka ayaa waxay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay tolanayso shaati ay doonayso in iyada kaliya isku cabirto u la ekaado, iyagoo markaa ula jeedo doorashada soo socota inay dowladda doonayso inay kaligeed ku shubato. Dhanka kalena qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo gaar ahaan dadka xiiseeya arrimaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in qaadashada kaarka aqoonsiga uu qayb weyn ka yahay dib u dhiska Soomaaliya. Qodobka shanaad oo ah qodobka ugu dambeeya wararka ugu waaweyn ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya 2025 ayaa waxa uu yahay isbeddelka weyn ee ku dhacay howlgalka midowga militariga Afrika. 1 January 2025 ayaa waxaa si rasmi ah isku beddelay howlgalka midowga militariga Afrika oo markii hore la oran jiray ATMIS oo hadda loo bixiyay AUSSOM. Wejigan cusub ayaa xoogga saaraya wareejinta amniga qaranka oo lagu wareejinayo dowladda Soomaaliya ugu dambeyn dhammaadka sanadka 2029. Howlgalkan cusub oo ciidan ahaan ka kooban 11,826 ciidan militari ah iyo 680 oo booliis ah ayaa waxay dowladda Soomaaliya ka caawinayaan inay si toos ah ugu wareejiyaan amniga qaranka. Isbeddelkan oo ka mid ah isbeddelo waaweyn oo isdaba joogay oo soo socday sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa la filayaa in dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba gacanta ku dhigto amniga qaranka. Khubarada amniga ayaa waxay sheegayaan inay arrintan halis weyn ku noqon doonto dowladda Soomaaliya maxaa yeelay ilaa iyo hadda waxaa jira goobo badan ee Al-Shabaab gacanta ku hayaan, welina dowladda ciidankeeda ma adkaanin oo isma raacsana. Waxaa kaloo la sheegay inay ku adkaatay deeq-bixiyaashii inay sii wadaan qarashkii ay ku bixin jireen. Intaas waxaa ku dhan qodobadii ugu waaweynaa oo aan ku soo koobnay sanadkii 2025 ee soo maray Soomaaliya. Fadlan la wadaag asxaabtaada, boggeynana ku xirnow like-ta iyo subscribe-ka anaga iloobin.